halkan waxaan ku duubayaa oo aan idin la wadaagayaa geeraar la yiraahdo gudban geeraarkaasi waa geeraar sarbeeban oo intii aan sarbeebi karayay sarbeeban geeraarkaasi wuxuu ka jawaabayaa meesha ay salka ku hayso dhibaatada haysato ummadda Soomaaliyeed waxagee ka timid dhibaatadeedani waxaan oo dhibaato inagu habsaday xagee ka yimaadeen mana aha jawaabtu inay tahay oo dagaaladii kadib oo marka dadka had iyo jeer wax isku qaadaan dagaaladii kadib maxaa dhacay dagaaladii ka hor ilaa intii miyiga la deganaa ilaa intii aanu gumaystuhu inoo imanin ee miyiga la joogay ilaa maantada aynu joogno meel laba meelood baa jira oo dhibaatadeenu ay ka soo jeedo ay salka ku hayso meesh taasoo ka jawaabaya laakiin aad buu u sarbeebay yahay sababtan u sarbeebayna waxa weeye uma diyaartidin Soomaaliyay uma diyaartidin haddaan israahdo ha sarbeebina si toos ah uga hadal oo imika clips fara badan oo horaan ka hadlay waxaan kaga hadlay liisha dhaqanka Soomaaliyeed laakiin haddaan israahdo toos uga hadalka qaawi wallaydan diyaar u ahayn waan dhaartay diyaar ma tiidin imika qiiradiinii yarayd ee aan gidaarka jirin ayaa la wada kacaysaan markaasaa ma xijin karaysaan badee anigu waan qaba markaasaa wada qaylanaysaan oo naftooda qabanaysaan oo idinkoon u fiirsanin wixii oo nin muxuu yiri doodu waa maxay bal dooda eegno waan ogahay taas sidaa darteed baan u sarbeebay oo hadhow dee la waayi maayo cid furfurta oo dee dadku ilaa dadka macaayo caqligooda dad fara badan baa furfuraya oo og dhibaatooyin ka jira anigu markaa waxaan qabaa laba meelood ayay salka ku haysaa dhibaatadeenu markaa intaanan u gudagelin geeraarka waxaan doonayaa inaan idin siiyo horta waxaan samaynayaa kow waxaan ka hadli doonaa sheeko yar oo falsafadeed oo uu leeyahay ninkii Greek ahaa ee la oran jiray Plato buuggiisa Republic ayuu kaga hadlay sheeko yar oo la yiraahdo The Allegory of the Cave waa sheeko uu kaga hadlayay bulshadiisii uu la noolaa markaan u fiirsaday The Allegory of the Cave waa falsafad waxa iga soo baxday inaynu ku jirro halkii ay ku jireen ummadda Greek ah ee ninka filosoofka uu soo qaatay isagu laakiin ujeedo kale ka lahaa anigu ujeedadii isagu uu ka lahaa inkasta oo ay dhinac iskaga mid yihiin laakiin anigu waxaan u soo qaatay oo aan anigu sheekadii ku maltahay sheekadii yani uga dhigay sal labada meelood geeraarku ka hadlayo labada meelood aan dhibteena ka soo jeeda ayay sheekadani ku salaysan tahay marka hore waxaan idinka sheekeynayaa sheekada iyadoo sheekadii markuu qoray waxa laga sameeyay kartoon yar oo laga sameeyay ayaa la tusayaa kartoon badan baa laga sameeyay waxa laga sameeyay clips caadi ah laga duubay waan soo qaadanayaa sawirkaas aan idin sharaxayaa kartoonka ah waa sawirkaas wuxuu toos u abaaraya Soomaalidu xaaladda ay ku jirto iyo nooca aynu nahay iyo bulsho ahaan sidaynu nahay iyo dhibaatadeenu meesha salka ku hayso markan kartoonka ayaan idinka sheekeynaya daawadsiiyana marka kartoonku waa sawir gamceed laakiin sawir gamceedkaas waxa laga sawiray sheekadii uu lahaa Plato ee la yiraahdo The Allegory of the Cave ee buuggiisa Republic ku qoran ee falsafada ah ayuun baa sheekadii intuu nin artist soo qaaday sawir gamceed ka sameeyay sawir gamceedka baan ka sharaxayaa sawir gamceedka marka ka baxo waxaan haddana yara dul istaagayaa dhowr qodob oo ah had iyo jeer Soomaalidu meesha ay fooda u saarto dhibaatadeenu inay ka soo jeedo oo dhammaantood khaldan dhammaantood waa fikrad khaldan waayo maskaxdii baan la shiirin oo si dhaba ayaa waxaa loogu fiirsaninoo ninun baa odhanaya barolinku halkaasuu ka soo jeedaa ummadeennu waxaad moodaaba way ka daba qaadanayaan waa runtii halkaasay ka soo jeedaa sheekadun baa la faafinaya intaasoo qodob buuggayga dhowaan soo baxayana oo insha Allah wiigana marka ku xiga soo baxaya la yiraahdo liisha dhaqanka Soomaalida waan kaga hadlay dhibaatooyinka balse laakiin sheekadan kaga baan hadal waayo sheekada buugga kaga hadli karo geeraarkaas oo kaliya ayuu baan kaga hadli karaa waxay suugaantu ku fiican tahay hadda bal waxaanu galaynaa kartoonkii baan idin daawadsiinayaa waa sheeko falsafadeed oo uu leeyahay ninka Plato daawasho wanaagsan okay waa kan sawir gamceedkii sidaan idin sheegay sawir gamceedku ha u qaadan inuu inagu ma aqoon sawir gamceedku wuxuu yahay waa ka horta sawir gamceedkii waay waa sheekadii aan idin sheegay ninkii Plato ee philosopher-ka ahaa sheekadii uu ku sawirayay society-giisu xaaladda ku sugan yihiin imikana waa tay Soomaalidu ku sugan tahay karto hadda sawirka daawada sawirkaasi waxa weeye halka waxaad aragtaan waa god horta meeshan gebigeedu waa god
halkaa yar waxaad aragtaa inuu yahay albaabkii godka laga soo galayo laga baxayay albaabka markaad ka baxdo waxaad u baxaysaa dabadii iyo cadceedii iyo dhirtii iyo dunida caadiga ahayd baad u baxaysaa albaabka markaad soo gashana waa godkaa madow aad soo galaysaa godkaa madow ayay ku dhex jiraan bulshada Soomaaliyeed godkaa madow bay ku dhex nool yihiin adduunka dabada iyo cadceedda ma yaqaano dabada ma bixin noloshooda dabada ma bixin godkaasay ku jiraan maxaan uga jeedaa waxaan uga jeedaa garaadkeena iyo maskaxdeena iyo habkeena wuxuu arkaynaa god baynu ku jirnaa yani physically bini aadam waynu dhaho dabad baynu maraynaa oo cadceed bay naga sareyso dabada waynu maraynaa laakiin maskaxdeeni god bay ku jirtaa marka haddii maskaxdaadu god ku jirtana jirkaaga dabada maraya ma arkayo waxaan dabada yaalan uga jeedaa godkaasaa lagu jiraa waa yahay godka albaabka markaa waan u soo noqon godkaa lagu jiro halkan dad baa fadhiya dartaa ku xidhan halkaas dadka ku xidhan waa bulshadii dadkaasi lugahay ka xidhayiin oo gamcahay ka xidhayiin oo qoortay ka xidhayiin oo adhaxday ka xidhayiin meel walba xadhkaa kaga geegsan dadka qoorta waxa ugu jira bir aanay midig iyo bidix iyo xagga sare iyo xagga hoose midna ma eegi karaan dadkaas sidaad u aragto xaggooda hore ayuunba eegi karaan waayi meesha ay fadhiyaan dadka waxa ka horeeya gidaar weyn baa ka horeeya sawirada waan u soo noqon doonaa sharaxaadda dadkaasi halkaa horun bay eegi karaan waxa ka dambeeya halka u dambeeya haddaad tagto dab baa bartaa ka holcanaya dabkaasi waa iftiinka geliya godkaa ka jira cadceedi kama jirto godkaa waxaa ka jira dabkaasi wuxuu samaynayaa halkaa godka waadiga arko waddaa soo marta waddadaasi halkan bay martaa waxay ka baxdaa albaab kale ka baxdaa waxay ka baxdaa dalool kale godku leeyahay dabadda uga baxdaa waddadaa waxa soo maraa waxa laaliya wixii xayawaan noolaa ayaa maraya marka kani waa sawir gabdhada sheekadu waxay ahayd halkaa waxa ay dadku markay halkaa fadhiyaan halkaa waxa maraya dadka dhir baa halkan ku taala dhirtaasi markaa iyo libaax baa maraya oo shabeel baa maraya oo bini aadam baa lugaynaya oo waxa lugaynaya nooli ilaahay oo dhan baa bartaa maraya waayo halkaa markeed aad arkayso oo faraskaasi ay marayaan dabkaasi ila qolkii wuu madooyay soo maaha dadkani way sii jeedaan oo dhabarkooda waxa maraya libaaxan iyo waxaan iyagu ma yaqaanaan oo ma arkaan iyagu waxa kale arkayaan dabkaasi uu baxaya markuu halkaa uu faraskaasi maro ama libaax maro ama shabeel maro dabkaasi markuu ku dhaco iftiinkiisu harkiisii ila har buu samaynayaa ayaa gidaarka iyaga dadka ka horeeya ku dhacaya halkaa fahma dadku waxay u dhaxeeyaan dabka iyo gidaarka marka dabka iyo gidaarka waxa dhexdooda marade har buu samaynayaa deelay harki ila waxa ku dhacaya iftiinkii baa ku dhacaya moogtay waayo dabka iftiinkiisu dadkan hortooda ku dhaca hortooda uu iftiimiyaa marka dabka iyo dadka waxa kala dhex maraa de har buu samaynayaa soo maaha harkii baa gidaarka ku dhacaya dadka halka fadhiya har bay markaa arkayaan waxa dabadooda maraya harkiisa oo gidaarka ka horeeya ku dhacayo ma yago arka inta way la fahantay bal aad u rajaynaya way harka markaa arkaan halka waxa libaaxu markuu maro ilaa harka waynu naqaanaa libaaxu midab buu leeyahay soo maaha iyo dhogortiisii iyo midabkiisii iyo inuu wax cuno iyo wixii ma yaqaanaan har baa gidaarka iyaga u mara afar lugood leh oo sidaa u samaysan faras baa soo mara har buu isna leeyahay harku waxaanu ku naqaanaa astaan kaliya inuu leeyahay harku waa isku midab hadduu halkaa faras cadi maro harka gidaarka maraya waa hadhow hadduu faras madoobi maro halkaasi waa hadhow hadduu maro geniga aad arkaysaane barabaraane midab kale hadduu dameer farowga iyo dameer istaba galaan oo dhabarkooda ay maraan labaduba har kaliya iyadoo kala garan maayaan mid baa dameer farow oo midab cadi iyo midab madow iyo liidad leh iyo dameer aan lahayn waxba midaba oo kala duwan kala garan maayaan waayo wixii waa harkaasi dadkaasi daawadaan markaa dhirtu gidaarkaasi ka daawadaan waa hadh noolaha ilaahay meesha maro dhan halkaas ka arkaan waay waxa jira markaa noole kale oo noolo dabadaada dambe ku noolo agtaada ku noolo aan had lahayn maxaa kamid ah bakteeriyadii baa kamid ah fayruskii baa kamid ah noolaha kale oo dhan war kama haysan waxay yihiin okay halka markay maraan dadkaasi harkaasay arkaan noloshoodii bartaasay ku xidhnaayeen gidaarkaa waxa maraya har buu ahaa harkaasay daawanayeen harkii bay ku koreen markaasaa ninkii 80 jirka ahaa ama 90 jirka ahaa ee silsiladaha noloshiisaba ku xidhnaa ee bartaa fadhiyey ayaa muxuu sameeyey siday harkii u daawanayeen bay harkii waxay ka sameeyeen maahmaahyo iyo geeraaro iyo gabayo iyo harxidhaalaya
iyo murti waxay u bixiyeen gabayadooda iyo geeraarkooda iyo murtidooda wuxuu ku salaysan yahay waa halkaa hadda u fiirso maahmaah buu samaynayaa maahmaahda uu samaynayaa wuxuu ka sameeyey adduunka siduu u yaqaano adduunka wuxuu ka yaqaanaa halkaa dee ilaa harbu ila gidaar buu daawanaya nin kale uu xidhiidhay oo god buu ku jira halkaasuu ka sameeyaa maahmaahaha markaasuu magacyada halkaa ka sameeyey markaasuu xeerarka uu leeyahay buu halkaa ka sameeyey wax walba halkaasay ku salaysan yihiin because caqligiisa iyo gidaarkiisa iyo garashadiisu halkaas ayuu muddo yaqaana wax kale ma yaqaano waayo halkaa maxaan uga jeedaa markaa halkaa waxaan uga jeedaa aqoonta dadkaasi ay leeyihiin waxa u soo gudbiya dabkaa ka dambeeya waxa laaliya wixii meeshaa mara wuxuu u soo gudbiyun bay aqoonta u yaqaanaan waa bas aqoon kale ma yaqaanaan waayo waxaan u soo noqonayaa halkaa markay taasi dhacdo waxaan anigu markaa sheekada aan u soo qatay labadeedii arrimood waxay ku jiraan godkan maxaan uga jeedaa godkan ujeedaan ka leeyahay labada arrimoodaan leeyahay Soomaali iyagaa dhexda gooyay labadaa Soomaalida iyagaa dhexda gooyo Soomaali bartaa fadhiisiyo noloshoodu inta leekaydna Soomaali waxaasay ku jirta adduunka waxba ma soo saarin adduunka waxba kuma soo kordhin cadaaladooda cadaalad ma waxa la meel aynu ka hagaagsan anigu ma garanayo godkaasaynu ku jiray godkaasi labada arrimoodaan leeyahay Soomaalida wuxuu ku hayaa dhibaato godkaasi waa qayb ka mid ah waayo godkaasi muxuu yaan uga jeedaa idinkaa furfuran doona dadku markay fadhiyaan xarkahan ku xidhan maxay yihiin kan qoorta kaga xidhan waxbaan uga jeedaa oo waxay ku jirtaa geeraarka gacmaha waxa kaga xidhan waxbaan uga jeedaa lugaha waxa kaga xidhan waxbaan uga jeedaa qoorta waxbaa kaga xidhan waxbaan uga jeedaa waxa aan leeyahay way ku xidhan yihiin labada arrimoodun midba mid yahay gidaarka sawirka uga muuqdo waa labadii arrimood mid ahaan waxbaan uga jeedaa dabkaa ka dambeeya waa maxay waxbaan uga jeedaa wax halkaa maraya maaha un faras iyo dameere wax kalaa meeshaa maray ujeeddo kalaa kalaya anigu waan kugu fahansiinayo sheekada imikee waayo iyagoo sidii ku jira hadda eeg oo halkaa fadhiya oo maahmaahdooda iyo xikmadooda iyo fikirkoodaba uu ku salaysan yahay haddaba marka maxaan uga jeedaa xaqiiq kuma salaysna habad xaqiiqa kuma salaysna waayo maahmaahda laga sameeyey laga sheekee iyo xikmadda had laga iyo geeraarka had laga sameeyey iyo gabayga had laga sameeyey iyo murtida had laga sameeyey iyo xalxiraalaha had laga sameeyey iyo xaqiiqigii dabadda yaalay dee shaqaba iskuma le because waxani waa had aad wax ka samaysay waayo iyagoo sidiya ayaa maalintii dambe nin ka mid ihii silsiladihii xarkihii goostay wuu ka baxay godkii dabadii buu baxay mar allaaliya markuu dabadii u baxay bay cadceeddii ku dhacday indhihii bay weliga cadceed mu argo waa nin godkaa ku gaboobay godkaa ku koray wuu arkuu garan waaye wuu dawaqay cadceeddaa uu garan waayey indhuhu xanuunay waxbaan uga jeedaa waayo cadceedda markuu u soo baxay wax yar kadib oo adiga arko markaad meel madow joogtay leyr lagugu shido indhaha gusbay noqdaan dabadii buu soo baxay wax yar kadib indhii caadi bay noqdeen wuxuu arkay libaaxii buu arko midab kale leh iyo xayawaankiyo midab kale oo iscunaya dad buu arkay shaqaynaya wuxuu arkay dhirtii wuxuu arkay ciidii duni buu arkay nooc kale ah oo aanu noloshiisaba ogeyn waxay yihiin hadda baro fiirso cir buu arkay daruuru arkay dayax buu arkay habeen dhacayuu arkay waa baryaya buu arkay يعني سبحان الله وحو أركي دad ka sheekeynaya waxa aan weligiiba argo bacteria iyo muddo la soo joogay meeshii wax bi oo dhan buu soo fahmay godkiiba ku soo noqday ninkii oo maxay soo ogaaday xaqiiqigii dabadda yaalay godkii ninkii markuu ku soo noqday ayuu wuxuu damcay dadkii inuu u sheego meeshan ay ku jiraan iyo xaqiiqiga dabadda yaala sidoo kala fog yahay waxaan ay gabigoodaba ka sheekeynayaan iyo waxaan ay ku sheegayaan fikir iyo xigmad iyo cadaalad iyo xeerar iyo ay samaysteena inuu ku salaysan yahay in haru noloshoodaba daawanayeen ayuu dabcan inuu sheego wuu yimi markuu soo galay ee uu haduu yiri waxaad ku jirtaan war ma haysaanba war dad gobolada tiro meesha baayo hoogay ayaa la yiri maxaad aragtay wuxuu dabcan inuu yiraahdo halka meesha maraya ma aragtaan ha bahalka hebel baa la yiraahdaa midabkaas uu leeyahay xayawaanka kale u cunaa kan dhir baa la yiraahdaa caynka soo caleemay leedahay cadceed baa jirtay waxaana daawatan dab baa la yiraahdaa kale waa dabo micno maraha cadceed baa jirta xaqiiqii markuu uga sheekeeyay dad xaqiiqa kay ma aha waa lagu kacay ninkii waa la gadooday waa ta la yiri ninkani ba dhaqankii dhamaa iyo fikradii dhamayd iyo ummadii dhamayd
wix allaaliyo wixii ay ku salaysnayd ku dhisnayd baabu ninkani ka horiyay ayaa la yiri waa lagu kacay waa la maagay waa la habaaray waa lagu qayliyay ummadii oo dhan baa isu tilmaantay wuxuu noqday nin tilmaamano hadda waa nin xaqiiq ka hadlaya farta lagu fiiqay gabayaa loo tiriyay magacyaa loo bixiyay waxa laala iyo wixii aqligooda ku jira harka ku salaysnaa oo dhan hadda harbay nimankaas difaacayaan ogow ayaa loogu yeeray waa markii dambe go'aan baa la gaaray maxaynu ku sameynaa baa la yiri markuu soo noqday de markaa godkiisa iyo xarigiisa wisbasku iskaga soo noqday tii isagoo xaaladii ku jira go'aan lagu gaaray in la dilo ilaa ninkani waa ninka ka soo horjeestay ummadii oo dhan way direen guddiba horta loo saaray guddigii baa wada fadhiisatay waanay dileen qortaani ka jareen ninkaasi markaa markuu soo noqday waxyaaluhu kula hadlay ee uu u sheegay oo uu yiri waxyaalahaas idinka khaldan oo aydaan ogeyn ma furfurayaan ugu xasi waxay yihiin wax garaar ka furfurayo oo ay ku jirtaa waxaad u fiirsataa nuxurku waa ninkaas dadka markuu la hadlayo ayay ku jirtaa waanay sarbeebanta inta sarbeebi karaayay marka waxay ugu kalifay deena sarbeebana de si kala loo sheegi karin saan u sheega oo diyaar badan oo ahayn marka imkana bal waxaan u yara gelayaa intaan garaarka u galin in yar baan dul istaagayaa waxyaalaha bal hadda dadku ay ku sheegaan ay yiraahdaan dhibaatadeennu halkaasi ka soo jeedaa ee geeraarada laga sameeyo ee buugta laga qoro dad buug ka qoraan oo tviyada lagaga hadlayo ee lagu doodayo waa harkii hadda ay harkii bay ku jiraan moogtay okay waan dul cararayaa kuman waxaa soo qaadanayaa 6 qodob 8 qodob oo kamid ah qaar baa waxay ku oranayaan arrinka waxa inoogu waxa weeye gumaystihii baa bariga saa inoo gumaystay maantana inoo gumaystigii baa wali socda Ethiopia Kenya reer galbeedka ka dambeeya waxa dagaalada iyaga ka riday wadankeena iyaga inoo ogolaan meel inaynu gaadhno waay marka ku tiraahdo cadee arrinkaaga evidence cadeenkeen ilaa aniga haygo oran gumaystay marka dee xaqiiqiya loo wada hadlayo waxaad keentaa cadayn inaad tiraahdo waxayga oo dhan waxa sababay ilaa anigu waxaan ka rabaa maxaa sababay waxa la yiraahdaa cause and effect hadda bal fiirso cause and effect waa maxay cause waa wixii sababay waa waxaas waa salka waa seeska ay dhibtu ka timi hadeeg waxaas waa meesha wuxuu ka abuurmeen waxana waa wixii uu dhalay markaa waa wuxuu dhalay dhibaatada waxbaa bilaabay waxbaa ka dhashay dhibaatadii markaa waa yahay Soomaalida labadaas ay kala saari lahayd si yaro fudud baan ku faahsiinaya waxa jira haddii imika calooshu ka xanuunto hadday filan wajiga ka soo baxaan oo filankii aad dadku ku yiraahdaan waxaad marisaa dhiiqa yaro waxaan mariyo cayn ka sameeyo deena boqol u tali sameeyo wax lagu talinayo wax kasta marisa way tagi waaye way ka baan maanta caawad seexataa bari bay filankii soo noqdaan saa dambaad ku noqotay waad marisay caawa way ka tageen bari bay haddana soo noqdeen markii dambaad dhakhtar u tagtay waxaad tiri dhakhtar oo filanka baa iga soo baxo waxaasaan mariyo dhibtaas ay haysata waay dhakhtarkii baa baaritaan buu ku sameeyay laab baa lagu diray waa lagu baaray waxa la ogaaday in caloosha bacteria kaaga dhalatay bacteriadaasina ay sababayso filanka ka soo baxay dhakhtarkii wuxuu ku yiri filanka ha taaban hadda cause and effect baan ku sheegay wuxuu yahay filanka waxa soo bax filanka waxa sababay waa bacteriada caloosha kaaga jirta waa cause ayaa la yiraahdaa waa wixii sababay caloosha bacteriadii markay kaaga dhalatay baa waxay sababtay inay filan ka soo baxaan wajigii dhakhtarkii daw kiniin buu ku siiyay wuxuu ku yiraahdaa taabanin filanka wajiga kaaga yaala kiniinkii baad cuntay bacteriadii baa dhimatay filanka way baaba'een Soomaaliyeed waxa ka Soomaalidu tiraahdo midil korkii lama dhayo mahmada Soomaalidu si fiican bay u haysataa Soomaalida markaa maxay sameynayaan waxay ku dul wareegayaan maanta dhan inay dhibaatadu tahay filanka waayo iyagu filanku bay arkeen laakiin dhibaatadeeni ba laab looma dirin ba laab meenu gelinin haddaan waxa baarin oo aanad ogaanin si cilmiyan loo baarna de lama helayo markaa maxaa la sameeyay waxay yiraahdeen filankii baa lagu filankii maxaa kamid ah waa gumayste waa qabyaalad waa xaweeye hoggaan xumo waa dawlad la'aan diintii baa laga fogaaday waa musuq maasuq waa faragelin shisheeye waa jahli waa intan baa lagu warwareegaya waa filankii laakiin waxa isweydiin leh maxaa sababay waay xabad baan yar dulmaraya okay waa gumaysta bay koorayaan marka soo daranaysaa cadayn ma haysaa cadayn kuma tusi karo
gumaystuhu inuu sababay nolosheenna ilaa miyiga markaynu degano gumaysta baanu inoo balka warantaas adornaysa aynu ceel qodan kari weyne qabiilooyinkii meesha deganaa ay awoodi waayeen inta ummadda la mideeyo in la yidhahdo waranu ceel qodano ila waa bini aadam caqli leh dadku way kaymahaasi ku noolaayeen oo way ka baxeen dadkii ismideyn kari waayey ceel qodan kari waayey aad ogeydeen intay biyaha u lugeyn jireen iyo si ugu dhiman jireen hadda bareeg waay haddadeedi waa gumaysta waxaan ku tusayaa waddanka Singapore la yidhaahdaa isagaba Ingiriis baa gumaysan jiray isku mar baynu xorriyadda qaadanay waxa ku nool 3 qowmiyadood oo kala duwan mid waxa weeye waa dad indha yar oo China ka yimid oo atheist ilaahayba ma aaminsan diinba ma haystaan midna waa qolo muslimiina hadda bareeg midna waa qolo hindiya qolada muslimiinta ahi qolada hindida ahina sanama bay caabudaan 3 qowmiyadood oo kala diina oo kala afa oo kala dhaqana oo kala midaba ayaa meesha ku nool waa wadan yar wadankaasi in khayraad dabiiciya ma laha habad khayraad dabiici uu leeyahay haba yarata ma jirto maanta isku maalin baan xorriyadda qaadanay waana la gumaystay maanta Singapore waxay ku jirtaa wadamada dunida leeyahay dunida koowaad bay gashay inaguna maxaynu nahay dunida saddexaad baynu u hooseynaa bal su'aasha ka jawaabo haddaad leedahay gumaysi baa sare noo galay Singapore ka sheekeen Singapore waa la gumaystay maanta halkaas ay maraysaa adigu why ay halka u maraysaa ay leeyahay gumaysi waa ka bixin maxaad uga bixi wada adigoo isku afa oo isku dhaqan oo isku diina oo isku midaba why maxaa sababay gumaysi haddaad leedahay waa aniga ku iri miyiga markii la joogaan gumaystu waanu inoo imanin maxaa ku waayay diyaasinaad ka jawaabi karin su'aashaada waay talabaad waxa ku leeyahay qabyaalad waxa ranaysa qabyaaladu xagee waayo maxaa sababay haddaad dadka weydiiso waxaad weydiisaa waayo maxaa sababay markuu raa waxaan la xidhiidhsaa waayo waxaad ranaysa qabyaalada maxaa keenay markaasuu koonaya qabyaalada waxa keenay dhaqaale la'aan oo haddii dhaqaale jiri lahaa qabyaalada waa laga bixilaa okay marka barologii ma hadda qabyaaladii barolku waa dhaqaalihii hawro waa qabyaalad waxa taa dhaqaale xumo ayaa qabyaaladii dhashay soo maaha marka qabyaalada iska daa waa dhaqaale markaasoo la saway baan dhaqaale u samaysan kari weeyay markaasuu qorey dhaqaale waxa loo samaysan kari waayay waxa jira musuqmaasuq ayaa jira masoo oo marka barolku dhaqaale maaha waa musuqmaasuq way barolku bareeg marba mid buu hoos si dagaya soo maartid ilaa marka dambe uu soo istaago garan maayo waxa qorey waa hoggaan xumo maxaa sabab wadanaysa waxa soo dhabi haddaad sii weydiiso sabab waayo meel buu soo istaagayaa oo koornay garan maayo qofka Soomaaliga ah dawlad la'aan bay koornayaan waxay qoreen diintii baa laga fogaaday qaar diinta lagama fogaanin lama fahminba diinta lagama fogaanin lama fahansanaba diinta Ilaahay Soomaaliyeed oo noogna kuma dhaqanno mana ogolanayno ku dhaqanno diinta Ilaahay haddaynu ku dhaqanno diinta wayna xakameyn lahayd kuma dhaqanno mana fahansan anu taan qabo wallahi inuu fahansanayn badintii Ilaahay meel khaldan baynu la galay diintii oo si khaldan inta loo macneeyay ayaa dhaqankii Soomaaliyeed diintiisa loo dhexgaliyo waan isoo dhahay waay waxay qorayaan faragolish shay waxay qorayaan musuqmaasuq waxay qorayaan jahli waa qodobada la isticmaalo waxa soo dhan buugayga dhawaan soo bixi doonaan kaga jawaabay inaanay ahayn doodo sax maxaan ku soo gabagabeynaa waxaan ku soo gabagabeynayaa sheekadaas u fiirsada godka ayuu garaarkani ka hadlayaa sidaas uu sarbeeban yahay godkaas aynu ku jiraa xarkahaas aynu ku xidhan xarkahaasi maxay yihiin godku muxuu yahay sawirka gidaar ka baxaya dabka xagga dambe ka baxaya muxuu yahay waxa halka dhex maraya maxay yihiin cadceedu waa maxay ninka baxaya waa kuma ee soo noqonaya la dilaya waxa soo dhan mid waliba micno gaara iyo meel bulshada ka mid ah matalaya marka hadii qof waliba soo furfuranayo isaga u taala ma furfurayo anigu mana aha xilliga furfuri lahaa imika garaarkii baan galayaa sida waan sii daynaya sharaxi maayo waayo hadduu hadalku sarbeeb galo haddii mar suugaantu sarbeeb gasho dee lama furfuro imikana garaarkii baan galayaa daawasho wanaagsan garaarkan waxaa la yidhaahdaa gudban bilowgiisa hore wuxuu ku tusayaa inuu sarbeeban yahay gadfan guudka u faydan godan gaaduna dhiibsan guran naasuhu geegsan saddexdaa bal hadda aan micneeyo saddexdaas baan micneeyo waan dhaafayaa markaa gadfan waxaa la yidhahdaa wixii daboolan ama dahaaran ama wax lagu dahaaray waa uu dadan yahay markaa maxay tidhi gadfan guudka u faydan waanu dadan yahay waanu faydayo ma dadna godan gaaduna dhiibsan wuu soo godan yahay haddana wuu dhiibsan yahay wuu taagan yahay guran naasuhu geegsan
وانو قريي ناسونا ويقسينا ويرماي يعني لبدا بويا هذا بلو فيصو ووحدة وهذا عند الدين سمارة كان ووح قدن وهذا لا توصل ووح قرن وهذا لا إرمان ساسو سؤال ساينت يرهدوك تصي ساينو سربيبيهي قد فنقود كأوفيدن قدن قادونا ديبسان قدن ناسوه جيكسان قول سيرا قنطوبان قاتن قاشنا كحيران قانا الريق جيدي فايسان قبران حولنا أقافن ويال وايا سابانيو قوش كان هاتن لجوغو قد حدودي لنبان قرديس كنا غينو يعيقو نوغن جنا قد بانبان نحايو قدان او قدا تشيركا قندها لوغي يروغا قوغا بيركا حانشاركا قنكا قوحدا قربا قد قد حبروحو دان حارق بال لغوغي جوغد قدون هولين مينو قدال هيغدا قودكا قنتا هوسقركا إيا جيساها تونا قد قندون مبانانا جهادا سيقدامن قلبيت بان دوغنا قلبيت دوغا ما جيدو دونيدا رير قلبيت كاي قلبيت كوا جهادا نو جيدو waxa kala laga jeeda gantaala indhuhu waxay gow ku hayaan gidaar aad u ballaaran suurado aad u gun weyn kolba ay dhan u gooshaan muuqaalka gadgadooma waa hargii garbaweyntiyo intuu guul la abuuro gabbad un laga reebay waxaana soo gudbinaya dogobo gaadda ka saaran gumbur yaroo dhabarkaasoo madag gowsaha saarto dabkooda garaacleeya warmahay ganayaan baa wax kastoo horgucleeya hoosiiskooda garqaado cilmigay godlayaan baa gaawaha aan u culaayo garaadku quudanaya annana waanu u guuxno maahmaah guun iyo faaliyo gabay jiifti iyo hees iyo geeraaraan ka samaynay xigmadii ay goboleeday waa adduun galbanayo shiigii fooda gasho gasariir lama waaye galab aanu dukuur iyo ducaan aan galbinaynay rabbigeen kaga goobnay roob doontaan u golxownay ayuunbuu ningadoodo inta uu iskalaalay bujigii iska gooyo dabadii u gurgurto galbaday oo ka dhaqaajay gudcur waa ninku raago iftiinka aan garanayne gol castii holcanaysay aragii ka galaashay durbadiiba ka giig garanwaaga asqow gaambiskiina la tiic hayska gaata xumaadee alladii wada goob gayigiina mushaax guryo soo noqodkiisii loo galay madashii noo galaa bixi sheeko marna noo gargarooc marna gaabi warkii gunaanadkii hadalkiisa gobadiisa u sii deg kuya waad goblanteen gabbalkiinu dam weeye rugtan aan gabadhuudhno jahligaa garwadeena goblan weeye aqoontu cilmi muu gelin fooda garashadiinna iyo maanku waa goggii garafoobay sirta goonyaha taallaa galkiibaa ku dahaaran maydun gaadhi salkeeda gabadh weeye sokeeye iyo gayaankeedba saluugto guurna aan ka filayno markay guun noqotaa taladii gedmato goraya haad noqotay sacabkii gardha yeeshay galalkii xarfanayay harraaday u go'een soortii gaajo dareentay garo kii dayacay markaad geel u dirtee gamboortii dawo moodaa geeridaadu tis qaatay waxaa taa garab yaallaa galladda aadmigu goobee intaa uu u garmaamiyo guuldarradu ka cabsooday gabboodka uu ka samaystay gayigeennu ma dhaadee gaashaankan aynu ka leenee guurtideennu tilmaantay xaajo weeye gabloosho waa sidii guntanii gorofkii u hogaystay inuu gaanaha maaro wata xaaladeennu intaa markuu ku yidhi ayay dee allah ila waa dadkaad garanaysay soo boodeen bulsho weeye gabloosho ay ka guurtay hubsiimo garowshiya lahayn oo ma taqaano gorfayntee garan waayo xogtiisiyo waxa uu golleeyay markaa maxay sameeyeen markay fahmi waayeen allah ayadee la soo baxeen dee waxaynu ku naqaanay waxay gaar u lahayd iyo gadeedii ku aroorto galaayuuskiyo beenta gungunuuska ku showre gurxankoodu tarbeel cadhogowska qaniine dhammaantoodba gadoode hadalkiisii gariife inankiina guhaashay markaasaa inankii la hadlaya laya gaambisxumow ma taasaad golo keentay ma jin baa ku gujeeyey ma maankaa ku gadmoodmay mise gaalolo joogow gumaystii yurubbaa giimbaar ku lulayo magaca ku gabraarta mise waad gadantoo xaqaad gaasiris leeday dhaqankaad gembi leeday
gayigaa dumi leeday guddi aynu u saaro markaa guddiga loo saaray markuu sheekadiisi iyo dee wixii oo dhan wada sheegay guxushaaga qandoodi iyo garmadoobaha beeshu gartii ruuga u laabee xaqiiqdii gandar saare godob aanu lahayn durbadiiba guddoonshe go-aankiina ku gaadhe qoorta oo laga gooyo dabeed gowrac marsiiye aad mahadsantii